hay-adda ururka qaramada midoobe u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa Soomaaliya ku bogaadisay inay saxeexday heshiiska lagu difaacayo dadka Afrika ku barakaca gudaha dalkooda. Soomaaliya oo ah dalka ay adduunka ugu badan yihiin dadka gudahooda ku barakaca waxay noqonaysaa wadankii 30aad ee Afrika ka tirsan ee heshiiskaasi saxeexa. Maxamed Yuusuf ayaa warbixinta nooga soo diray Nairobi. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa inoo soo koobaya. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saxeexay heshiiska Kampala ee ahmiyadiisu tahay in dadka ku qaxa gudaha dalalkooda la ilaaliyo lana daboolo baahiyahooda la soo gudboonaada nolol maalmoodkooda. Soomaaliya waa dalka 30aad ee saxeexay heshiiskan oo ay sanadkii 2009 55 dal oo Afrikaan ah isla qaateen. sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay laanta u qaabilsan qaxootiga oo Soomaaliya uga mas'uul ah arrimahaasi ayaa sheegay ogolaanshaha heshiiskani inuu hore u marin doono nolosha dadka Soomaaliyeed ee guryahooda ka soo qaxay. isagoo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi it helps to promote and also to strengthen the regional and national measures to find solutions. heshiiskani waxa uu adkayn doonaa horena u marin doonaa tallaabooyinka guud ee loogu baahan yahay in xal loogu helo dadka guryahooda ka barakacay. qodobka labaad waa heshiiskan Kampala inuu aasaas u noqonayo nidaam sharciyeysan oo lagu difaacayo laguna caawinayo dadkaasi Soomaaliyeed ee barakacay. qaybta ugu dambaysa ee aan ka eegayana waa qaabka sharciyeysan ee midaynta iyo wada shaqaynta ilaa heer gobol. sida laga soo xigtay xarunta dadka dalalkooda ku barakacay 10 milyan oo qof ayaa Afrika gudaheeda ku qaxay ilaa sanadkii 2018 boqolkiiba 11 tiradaasi ka mid ahina waa Soomaali. dowlad awood leh oo aan muddo badan ka jirin Soomaaliya iyo la dagaalanka kooxda Al-Shabaab ayaa keenay in ay dad badani ka qaxaan guryahooda. waxaana la sheegay in la gaadho dad baahan oo Soomaaliyeed inay ku adkayd hay-ado badan oo ka shaqeeya arrimaha bani aadnimada. naadshego mar kale arrintaasi ka hadlaya waxa uu yidhi so the same way that insecurity is affecting internally displaced persons, it also affects sida ay ammaanlidu dadkaasi barakacay u saamaysay ayay hay-adaha gargaarka ee doonaya inay dadkaasi caawiyaan u saamaysay. waxaan aaminsanahay in dowladda Soomaaliya ku dadaalayso inay hay'adahaasi gaaraan dadkaasi si ay u siiyaan caawimada ay u baahan yihiin. heshiiskan ay Soomaaliya saxeexday macnihiisu waa inay dowladdu qaadaa tallaabooyin ay wax kaga qabanayso badbaadada iyo in la daboolo baahiyaha dadka gudaha dalka ku qaxay. Cabdulaahi Xasan oo ah cilmi baare ka tirsan hay'adda Amnesty International ayaa sheegay in Soomaaliya u baahan tahay caqabado badan oo ay ka gudubto si ay shuruudahaasi u buuxiso. waxa aanu yidhi as long as this conflict continues, the situation of IDPs will be there. ilaa iyo inta ay xiisaduhu ka taagan yihiin Soomaaliya xaaladda dadka barakacayaashu way taagnaanaysaa. taasina waa caqabada ay Soomaaliya u baahan tahay inay ka gudubto. ta kale waa xaaladda cimilada ee aynu aragnay Soomaaliya iyada oo sanadihii ugu dambeeyey ay ka dhacayeen abaaro ba'an iyo macaluul joogto ahi. waxay u muuqataa in xaaladda barakacayaashu ay muddo dheer sii jirayso. dad kale oo badanna ay barakici doonaan marka la eego abaaraha iyo xiisadaha dagaalada ee jira. laakiin taas macnaheedu maaha inaanay dowladdu difaacin xuquuqda dadka barakaca iyo noloshooda. not to protect the rights or the livelihoods of IDPs in the country. 2 milyan iyo 600 oo kun oo qof oo Soomaali ayaa barakacay. tiraduna waa sii badanaysaa ilaa iyo inta dagaalka lagula jiro ururka Al-Shabaab. mahadsanid Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo inoo soo koobiyay warbixintii magaalada Nairobi uu nooga soo diray Maxamed Yuusuf kuna saabsanayd Soomaaliya oo saxeexday ahdiga dadka ku barakaca gudahooda. halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America.